السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتي إذا شرفت له ونكي حلق انتداها وقيس عبد الله كاري ومرقاتيجي النولا سودو هذا عاوي عداد شير جرين ويدو لايك تتابن ويدو أو برنامج كيجا مال والباب جلين ويدو فميل يحلق انتدا ماهد ولا كين ماهد كين ماهد صاحب كين ماهد وحاس كنا هنمر sababtaan kuu sheegayaa anigu maalintaan guulaysto waad aragtaa dhool cadeyntaad iga aragtaa waa qoslaa ogus maalintii la dhaldhaco oo baabaha laga dhigo anigu qoslayaan kuu soo galaa oo faraxsan oo saas u dhool cadeynaya inaadeeru guusheeda hor istaagin iga wareeg hay hor istaagin iga wareeg wararkan caawiday ayaa waxay kala yihiin qodobka koobaad nimankii ayaka ahaa ugusa ahaa maantay waa tii aan idiin soo gudbiyey waa tii la xaskulay bab haddana bab oo haddana bab oo haddana bab oo haddana bab haddaan caawa awoodo inaan meydkooda iyo dhaawacooda idiin soo gudbiyo oo aan youtube-ka community-ga youtube-ka iyo facebook-ga iga ogolaan lahaayeen life aan kugu soo gelin lahaa ayakoo saas ku wada dul saaran kama naxo uma jixo ehel maahin walaalkay la dhasha hadduu ku jira ka nixi maayo anoo saan u qoslaya idin soo galaa u tacsiyeyn maayo dhihi maayo walaalkayaa dhintay ilaahina ma geliya haddeertaan walaalna igama jiro ehelna igama jireen laakiin hadday galaan oo ay aadaan hadday ku dhintaan wallaahi saddex magoo ilaahay anoo saas u qoslaan kuu soo galaa sababtoo ah sooyaal taariikheed ay meel iigu qoran yihiin nimankaana waxaa ii qoran intay u geysteen dadka aan ka dhasho hawiyaha la yiraahdo oo magaalada muqdisho ugu geysteen abeerkayga qalbigay ka go'i weyday xanuunkiya hadda xoogaa boqolkiiba 20 xoogaa waa iga degay markii lagu quraacday 80 meela 60 meela 100 meela 50 meela 40 meela intaas markii lagu kala quraacday oo aan tiriyo xisaabsado nimankii aan ka tiriyo 500 600 800 900 kun ay la dhaafeen xanuunkii boqolkiiba 20 iga degay sababtoo waxaan xasuustaa ina adeero waxaan xasuustaa ayakoo sooba qarxiyey oo hooyo iyo caruur iyo ubad iyo qolo walba hilibkoodii googo'een oo guryihii ku dumeen oo dadkii meydkoodii la kala garan waayey oo qof walba yiri hebel meeshaasa igu dambaysuu taagnaa oo qof meeshaas yaalloo googo'ay iska qaatay oo duugtay oo hebel ahaan u duugay hooyo meel wax ku gadaysay oo meel iska fadhiday oo aan waxay galabsatay ciyaalkeeda bil u raadsanaysay oo meeshaas iyadana ku gubatay ku baaba'day oo hooyo halkaasay maaragta iyadana aan lagu ogaa meydkeeda iyo dhaawaceeda oo la qaaday waxaan ogaa hoteeladii muqdisho ardadii wax noo baratay oo jaamacadaha nooga baxday oo midba midka kale ka darnaa hotel shaamow iyo taqaatiirtii oo qodbaynaysa oo is ag fadhida aynadeero macano waxaan ogaa iyakoo isla googo'ay iyadoo ardooyadii shahaadada dufcaddii ugu horreysay soomaaliya jaamacadaha wax ka soo baxay ahaayeen oo waddanka dagaalka markuu ka soo baxay dhibka wax lagu soo baray oo indhahanagii ahaa oo hooyo iyo aabba ay baranayeen oo ku haminayeen islahaayeen aabbaahida uga baxdeen dhibka uga baxdeen gabadhaadiyaa waxay kuu barat takhtar wiilkaagiyaa takhtar kuu bartay dhibaatada uga baxday annagoo ku haminayna qarxiyeen taqaatiirtii wax daaweyn jirto oo experiencega lehed oo khibradda lehed ka sii daran hortanaday ku dileen ardadii iskuul sare nooga baxday oo aan islahayn maaragtay shahaadooyinka hala guddoonsiiye qaarkii oo number 1 galana dowladdoon tabar lahayn bal wax u qabato hargaha iyo saamaha qartatab waana lagu horruugay hotel walba oo midba midka kale ka daran yahay waa la gala waa lagu jiraa xildhibaan hebelaa lagu dila nabadoon hebelaa lagu dila rag aqoon-yahana injineeraha lagu dila barofesoraa lagu dila hooyooyinaa lagu dila gabdhahan waxba galabsanaa lagu dila caruur dhallinyaro ka qadeynaysa maqaaxi hebel lagu qarxiyey wariyaala la laayay inaadeer intaasaan usoo taagnaa qalbiga inuu imadoobaado waana xisaabinaya intaasba waa xisaabinaya qalbigu inuu imadoobaado oo aan jirkii ka baabacay anaa kuu sheegaya caaw kula hortaagan waana nacaybkaa nimankaan u qaaday waa nimanka aan ka dhagaysto intay qarxiyaan 500 qof 600 qof 1000 qof intay qarxiyaan ay idaacad ka soo hadlayaan waxyaalaha oo adkaysan waaya ka mid tahay sayleeyin gaaladii ilaahay subxaanahu wa tacaala hana haleeshiye waa layn waa baabeen waxba kabaana reebin maaragtay goormeen gaal noqon goormeen ummadda aan kale aan ka duwanaan goormeen dadka halkan degan oo intaas la isticmaalayo la baabacsanayo gaala noqoto waxaa nagu dhacay caruurtanadii haweenkanagii intaana laga reebtay oo nin walba oo gurigiisii laga soo ceyrshay waxaa lii meeshaan kama shaqayn kartid kamana socon kartid
bax meesha ka soo jeeda meesha aad lahayd ama qoortan ka goynayna kuwii ku adkaystana inta qoorta laga gooya ceelal lagu riday ninkii halganka macawsli bilaaba kamid ahaa qoorta laga gooyay saaceel lagu rida madaxiisi waa timaan dhul sheega masaajid cali gadud beedkii ilaahay oo lagu cibaadeysan jiray waad arkaysaa masaajid cali gadud maanta marqaatiyan kugu qabsanaya oo culimada Soomaaliyeed lagu soo saari jiray hiiraan iyo maaragtay looga imaan jiray maaragtay oo culimada caalamka ay joogi jirtay shabeellada dhex looga imaan jiray masaajid cali gadud qashin qubay ka dhigteen meel baada ay ku qaadan ka dhigteen meel waxaan afkaygu qaban karin laga soo dhaxbaxshay ka dhigteen waata la sufeynayay oo la nadiifinayay masiibooyinka nagu dhacay oo dhibaatada nagu dhacday wixii aan ka kabsan weynay annaka waxaan isku keenay ahayd sababtoo waxaan ogolaanay niman aan dhaqan iyo diinba nagu dhaxayn ayaan ogolaanay annaka ogolaanay waa iska dhicin weynay dadka aan la waayay ka soo gudo maanta marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala وكي حسن الشيخ محمود إركاس نوغا سورودي إلهي سبحانه وتعالى وكي مدحوينه نوغا دغ حسن الشيخ محمود وحو انديهيسو كو أرك وانديهيسن او قلبيgiisa jirkiisa asagoo caafimaadkiisa boqolkiiba boqol yahay umada Soomaaliyeed ku yiri aan la dagaalana nimankan aada garab isiya aan wada aadno wala aad tabartooda nimankii dhowr iyo 10 sano haystay shabeellada dhexe nimankii dhowr iyo 10 sano haystay galgaduud nimankii dhowr iyo 10 sano haystay Soomaaliya fiiri hiiraan ku dar hirshabeelle galmudug bis ku dhig nimankii dhowr iyo 10 sano ka talinayay oo wax walba iyo baad walba iyo gaadiid walba iyo qori walba gatay waata la cayrsanayo waata meel walba la marinayo waata hood walba ka baxayaan waata dagaal bareera gali waayeen dagaal bareera ay uga soo horjeedaan ciidamada waata gali waayeen tuuladii ay maqlaan waa loo soo socdo waa kuwa ka sii cararay oo cagahooda ku iska wax ka dayay maanta waxaan maraynaa marka guushi ugu weyneed aan maraynaa ilaahay awoodiisa iyo aan uga xamdi naqaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka islaamka ilaahay waa inay ku xamdi naqaan oo ilaahu rabbiyo adaa guushaana gaarsiiyay ay yiraahdaan guushaas aan gaarnay oo aan caawa gaarnay waxaan qofka koowaad uga mahadinaynaa ay tahay xasan sheekh maxamuud iyo ragga la shaqeynaya tiimka wax ka maqlaya oo la shaqeynaya oo sida daacadda oo la shaqeynaya sida nabad sugid oo kale in ragga maaragtay amniga oo kale wasiirada oo kale ra'iisul wasaaraha number 1 ninka oo ra'iisul wasaaraha ah oo si fiican u maqlaaya oo xasan sheekh si fiican u dhageystay oo xasan sheekh raali ka ah wuxuu sameeyay abtigay boqolkiiba boqol waanu mahad celinaya ninkii abtigay ku soo qaldami lahaayo xamse cabdi barra ninkii ku soo qaldami lahaayo bartaan ana u fadhiyo wallahi billahi tallahi gaashaankan ku daruuraya haddaad ila dhalata xataa ka xishoon maayo ragga abtigay u fakanayo abtigay social media ana u jooga aniga ish u jooga aniga afkii luqadii wadankan joogan waa in la gala caawo iga raali noqdo abtigay ana halkaan u fadhiyo oo difaacanaya dawladda Soomaaliyeed ana halkaan u joogo difaacanaya tiimka xasan sheekh maxamuud ana halkaan u fadhiyo difaacanaya sababtoo ah waxay naga dulqaadayaan cadaawad nagu socotay dhaqan xumo nagu socotay dadna duleystay dadna baaba'saday ummad na qaribtay ay naga kicinayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha guuleeyo ummadda Soomaaliyeedna sharafka ay u galeen amaalkeeda ilaahay ha u gudo adduunka ha u gudo taas markaan kaaga soo taga caawi oo nimankii ugu saahaa iyo xasan sheekh maxamuud aan kaaga soo tago ciidanka nabad sugidda qaranka iyo waxay ogaadeen nimankii xalay dhaqdhaqaaqooda meel shabeellada dhexe ku taala oo la yiraahdo xawaadley beero ku yaala meeshaas dhaqdhaqaaqooda la ogaaday isla xalal la sawirtay waa laga tagay xalal markii la sawirtay diyaaradii sawiratay markay iftiinka u soo baxay oo la kala hubiyay inaan meesha shacab ku jirin waa laaga dhigay saw beerihii ay ku fakadeen inta fakatay 150 kaas waxaa la ii sheegay baabuurtii qaraxyadaha ay wadeen ku qaraxday oo diyaaraddu qarax la eegatay baabuurtii laysay markay baabuurtii laysay nin dhaawac ma ahane nin kale meeshaas inuu ka tagin nin firar ku jiro nin lug jiidaya nin gacan jiidaya mid gacan ka hartay mid maaragtay meel kale ka maaragtay xabadu ka haleeshay qaraxu ka haleelay intaas inay ka kooban yihiin oo meesha ka carreed ayagoo noocaas la ii soo sheegay ilaahay mahadiis xamdi naq weeye waxaan idin sheegayaa marka nimankaas ayaga ciidamadii daba galay rag badan anigu hadda ma hubin karo oo waa la hubiyay idan dhihi maayo laakiin raggii la soo gudbiyay oo saaka la soo gudbiyay ka badan ba inay soo heleen meydkooda iyo dhaawacooda oo la qaadi waayay
aan maaragtay la iisoo gudbiyey. waxaa kaloo la iisoo gudbiyey nimanku baabuurta ay wateen laba qaraxa iyo 4 baabuuroo kale ahaayeen. hal baabuur kama fakam, 6diiba meesha lagu baaba'sho diyaaradda ku baabi'isay. lugay ku fakadeen nimanku ku carareen, ciidankuna waa daba galeen. waxaan kaloo warkaaga hayaa qodobkayga labaad caaway waa kugu dheeraada ugusaa kugu dheeraada meeshii galmudug ahadan caawa warkaaga hayaa. galmudug waa la kala qaybshay ciidankii istiraatiijigii dagaalka waa la kala qaybiyey. ku dhihi maayo halkaasaa la geeyey, laakiin dagaal 3 jihaha loo qaybiyey. waa 3 jiho ayay galmudug dagaalka ka qaadaysaa. dagaal xeebta ah, dagaal xardheere ku wajahan, iyo dagaal kaloo qayb kale oo la yiraahdo ma sheegi kartid. labadan way ka warqabaan, laakiin ka saddexaad ma sheegi kartid. waa sir ciidana la yiri mana sheegayo. saddexdaas dagaal loo kala jiheeyey saadkii iyo wax walba iyo booyadahoodii iyo biyahoodii 10 kilomitir caawa loo jiraa xardheere. aaminde xilku aniga waxaan ku soo gudbinaya waa biyo kaba dhibcaan. waa xaqiiq 100% haddaa barnaamijkayga aad meel walba geen weydana waa ku caroonaya asaan ku xanaaqaya waliba. wariyaa afkan ku hadla ma taqaana. afkan ku hadlayo waa af aan dawladda ku garab taaganahay oo tiimka daacadda aan ku garab taaganahay. ninka duranka wadana aan gaashaanka ugu daruurayo ayaa kugu garab taaganahay wariyaa. nin aniga ma aha qaldama maahay wariyaa. la soco nin waxaan ahay daacadnimo meesha la soo fariista wariyaa. xil gutada la yiraahdaa kala baro dadkana baro. ilaahay idankiis waa guuleysanaynaa. waxaan kaloo ku hayaa markab buuxa ayaa wuxuu taagan yahay hobyo oo nimankii Mareykanka ahaa wataan United States of America ay wataan military base oo dhan oo guurayay wuxuu soo istaago hobyo. waxaa ku jira doctors, waxaa ku jira maaragtay isheeg oo mediciinkoodii wuxuudii dhanba isbitaalkii oo dhan ku dhex yaala markabka. waxaa la yiri qof ku dhaawacma galmudug oo halkaas ku dhaawacma ma aadaya xamar loo qaadi maayo. diyaaradda helicopter taa soo qaadaysa markabkaana dul keenaysaa. taqaatiirtii wax walba halkaas lagu kabayaa. isbitaal qaadi kara waayaa la yiri 500 600 oo dhaawac ah. intaasna nagaba dhaawici kartaba waxba nagaba qaadi karta. markabkaas asagaa waxaa kaloo igu maqaalaa hubkii ugu badnaa inuu wado. hubkii ugu badnaa iyo rasaastii ugu badneed inuu wado. inuu ay saaran tahay 50 doomood oo kuwa dheereeya oo badda lagu sii daayo. oo nimanka markii laga awood roonaado hadday doon ay la kula fakada maagaan badda ka soo qabanaysa. caawa degdina u wadaa riyaa ogusay wallahi jideed ma furno. wallahi soo dhiib haddaad ehelka tihiin hadda dadkii ehelkiina u soo carara. ilaahay baa igu og soo fakada jid idima furna. meel kasta waa laynka ooda. xasan sheekh ha barbaryinina wada hadana in la furo dhihi maayo. xasan sheekh wuxuu ogaaday dowlado badan oo dariska sirdoonkooda inuu ka buuxaa la ogaaday. oo sirdoonkooda in ku jiro niman shisheeyo u shaqeynayeen inaad tihiin la ogaada. niman maaragtay meesha lagu hayay oo cadowha inaad tihiin la ogaada. wada hadalna la geli mayno nin cadowga ummadda Soomaaliyeed u shaqeynayay. waxaan wada hadal la gelaynaa nin ummadda Soomaaliyeed u naxayay oo aan maaragtay markii horeba dhibaato u geysanaan wada hadal la gelaynaa. haddaad laakiin iskaaga isku soo dhiibto adoo socdo aad timaadid oo dawladda aad soo aadid walaalow macaanow lagu cayrin maayo, lagu necbaysan maayo. waxaan dawladda madaxeeda u sareeyaan go'aan ka gaaray. hadday meel kugu xareynayaan ayaga kugu xareynaya. hadday leeyihiin tiirka lagu toogtana shaqo kuma leerna go'aan laga gaaraya. laakiin haddaad dambi weyn ba gelinba oo aad dadka qariye iyo jiriimo weyn aad u geysan soo xarood walaalo soo xarood. hadda rajaleeda jidkii aad doonta kula fakan leedahay ka xiran caaw oo aad rajada ka qabto xarar dheer waa ka xiran. afarta koona laga taagan yahay. carwa kaasi doontiina maanta inta baxdo caaw carwa taas ha isku dayda xarar dheer iyo aagis inta ka baxday meeshii birgaan la dhiij meeshii oo bad yartaan magaceedu waa ilaabay. car inta ka baxda nabad gasho caaw iga qora aniga ugu shay. car doontiina inta baxda soo nabad gasho. meel kasta saas la kugu taagan yahay. saas aan la kugu wada hayaa. meel aad ka fakan kartiin iyo meel aad u fakan kartiin male. cali dheere fariinta ugu dambayso ku wada waxay tahay rajo waxaa kuugu dhow intaad ehlonaarnimo ku dhiman inaa ummadaada Soomaaliya cafis weydiisato. dawladana isku soo dhiibto adiga iyo waxa kula joogo dhan iyo kaba ku tukade. ummadda Soomaaliyeed inaa cafis weydiisato waxay ugu wallahi inaad janno ku galin. waxay ugu billahi inaad janno ku galin. caawa ana kitaab wareed naaraad ku galaysaa. naar weynaad ku galaysaa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala harka cafin kara waxaad ummadda Soomaaliyeed oo masaakiinta u geysatay. hooyooyin masaakiina oo ilmahoodii biilayay oo si sakraada ku biilayay dhib badan ku biilayay ayaad qarxis ayaad baabiis
ayaad indhaha ka ridda dadkoodii caruurtoodii agoon maarad hooyo la-aan ku ridda aabbahoodaa ka disha hooyo aabba la-aanaa ku ridda indha la-aanaad ku ridda ummaddii soomaaliyeed oo dhan saasuu gashay wallahi aan lagu daynin wabillahi aan lagu daynin caliyow isi soo dhiib tala maantay kuugu dhowday isi soo dhiib caliyow isi soo dhiib caliyow dowladdaada u imaad jid kuma furna caawa rajada aa ka qabtay xarar dheere waa soo dhammaatay iyo badda meesha ka geli lahayd iyo ceelbuur iyo meelihii badda dabiicigaa ku yaalleen oo doomuhu ku taagnaayeen doontu waa kuu taagnaan kartaa waana raaci kartaa laakiin markay dhaqaaqdo waa lagu hayaa waad ogtahay shalay igamana waryirid doomo caadiyahoo socday oo kalluumaystayaala in laga qabtay kulligood oo badda laga soo wada qabta 4 doomood la soo qabtay markii la baaro la ogaadana inay shacab yihiin la sii daayay adinkana saasaa laydiin sugaya igama dhaga yirid galmudug 4 koore kaa taaganta xasan sheekh wax walbuu ku adeegsada markabkii aan idiin sheegi jiray oo maraykanka ka imaanayay waa first president of Somalian first president Horn of Africa first president in Africa oo la soo siiyo markab buuxa oo hub ah ay United States of America ay gacanta ka soo saarto Hassan Sheikh Mohamud kaliya the one is only kaligiis ninka aan maaragtay loo soo ogolaaday waa Hassan Sheikh Mohamud caawa meel iga qorta soo baara taariikhda dib u raaca markab nin loo soo saaray loo soo raray oo Hassan Sheikh Mohamud ka horeeyay oo intaasoo oo huba saaran yahay dhashiikaha kaliya 60 lagu tilmaamo markabka saaran 60 qoriga la yaqaano oo lidadka bahalka isku duqeeyo oo hoobiyaha la yiraahdo 100 lagu tilmaamo oo militariga loo wado waxa lagu tilmaamay daba jeexa 200 oo kun lagu tilmaamo askartana ma qaadan karto the one is only Hassan Sheikh Mohamud in Africa oo markab intaas leeg la soo siiyay wasaaradda gaashaandhigga markuu ka daba laalaabanay oo labada goorta u tagay ninkaan la yiraahdo president Joe Biden ujeedku wax kala ma ahayn soo carar isku soo dhiib Hassan Sheikh intuu soo wixii uu hayo kugu soo hurgufin wuxuu u qaybinayaa ciidamada Soomaaliyeed oo la soo tababarayo oo maaragtay sida fiican loo soo tababaray ayaa farta laga saaraya hubkan ummadda Soomaaliyeedna ku xoreynayaan waa guuleysanay guul weynaan gaarnay caawa xilguntada wuu idin doobiyay caawo kalena leeyma celceliyo ina adeero macaan in la hayga celina faraha iga wareeji the one is only aniga Hassan Sheikh Mohamud soo raacaya the one is only oo meeshaan xaq u jooga dawladda the one is only oo dawladda u hadla the one is only isa soo xilqaamay oo aan adduunyo ku raadsanin hadalka oo hadlayo raba inuu dad ku badbaadsho dad 14 sano la baabi'inayo the one is only aan rabin inuu darajo ku helo the one is only aan rabin inuu maaragtay isku tustuso dadka idaacad ka tahay serious ka tahay waan ka ballan qaaday maalintii ugus laga kiciyo dhul hawiye oo dhul Soomaaliyeed ay ka dhamaato wallahi life igu arkimaysin caawa idin dhaartay umana qalma life aniga igu arkimaysin YouTube uma qalma YouTube igu arkimaysin page Facebook page umana qalma wanin weyn odayana سواني نوين قضية أو حشودانا هداني حشونا وحا أركل هيدا أنا وكلا هذا ضدك قار وأفلقا دوني يا أركل هيدا شن سنة إذا هرفضي أنا أفلقا دونا ولم من نار هداد أركتير أنا وقف أفلقا دينا يعني إيه صدرة أنا أكرها القرنية ما أفلقا دي ضدك سيدو بالماسي أروح الله نن حشودانا هاي نن حلقبتانا هاي نن قضية هانا هاي نن مسؤولة هانا هاي اسكو ما نقورو وح أنا جماعة بري قدو مية أو ريكورد أو دبل يدقيسيني remember in igu sameeyana ma doonayo way dhici kartaa inay cuqubadii grid igu dhacdo oo remember daas oo kale igu dhacdo laakiin intaan is ilaalin karaan is ilaalinaya aad iyo aad ayaan idin salaamo waan idin jeclaha reexil guntada media reexil guntada familia dadkayga sharafka halka amaraya caawi gaarsiiyay oo shareta iyo like iyo comment iyo subscribe iyo meel walba gelinaya waa in ku kalsoona saa igu kalsoontaan isku kalsoona waraysiyada caawi وأيضا روحه وأنا سو وضع طبعا لا يفكوا وأنا سو بدنيا إن شاء الله تعالى وأقول عاو كله لايف كمان جارة أنا مركان لايف كجلو ومركان ور عادي هين أو ودن كان كور رمينه لكن عاو كله مركان أوجس كتونتو كل جي الدوبية بق 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 بل 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 والدوبية ندو بنكرنا وانا هاتي هذا ندو بنكرنا لانديرنا هو يدارو ذا كرش هل كاسم كوفر ديا adiga hooyada aday iska dhalta aniga hooyada iska dhalma linland dheerahan wiil daarood ba ka soo jeeda labada qabiil ba matali kara aad iyo aadna ugu kalsoon abtiyaashiis ogaadeen aad iyo aadna u jecel
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.